maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa saaka xukunno iskugu jira xarig iyo ganaax ku riday laba eedeysano oo lagu soo qabtay iyagoo soo gelinaya gudaha magaalada Hargeysa khamri lagu qiyaasay inuu ahaa 150 litir oo ku jira 35 shirkaan. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in laga soo qabtay khamrigan iyo nimanka watayba duleedka magaalada Hargeysa. Waxaanay ciidamada booliska Soomaaliland u soo gudbiyeen maxkamadda gobolka Maroodijeex. Maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa iyadoo u cuskanay xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka iyo aayadaha quraanka waxay ku riday labada eedeysane 3 sano oo xarig ah iyo min 3 milyan oo ganaax lacageed ah oo shilinka Soomaaliland ah. Waxaanay ciidamada booliska iyo maxkamadda gobolka iyo waliba xeer ilaalintu si wada jir ah ugu gubeen khamrigii la soo qabtay meel fagaara ah oo goobjoog ka ahaayeen warbaahinta iyo dadweynuhu. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Sareeyo Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ku hambalyeeyay ciidamadii soo qabtay khamrigan qiyaastiisu dhantahay 35 shirkaan. halkan maanta waxaanu ay maxkamaddu ku xukuntay khamri ay ciidanka booliska soo qabteen oo dhan 150 litir oo khamri ah. khamrigaas oo ay soo qabteen saldhigga Faraweyne ee qaybta galbeedka. waxaan aad ugu ammaanayaa ciidanka booliska howlgalka ay kula jiraan mukhaadaraadka iyagoo ilaalinaya shuruucda dalka u taala ee lagula dagaalamayo wax alla wixii mukhaadaraad ah ee dalka soo gala. waxaan aad ugu hambalyeeyaa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga iyo dhammaan ciidanka booliska howlgalka adag ee ummadda ugu jiraan si ay uga badbaadiyaan dhaqan xumada boobka iyo wixii darooga ah ama mukhaadaraad ah ee dalka soo galaya. waana ku mahadsanyihiin. ayaguna halkaasi ka hadlay bahda garsoorka oo iyaguna sheegay inay mar walba diyaar u yihiin inay xukunno ku ridaan cidii lagu soo qabto iyagoo ka ganacsanaya amaandooriyaha. ilaahay quraankiisa oo ku sheegay dhowr meelood buu kaga hadlay khamriga inuu yahay umul khabaa'is. nabiguna calayhi salaatu wasalaam 10 goor buu nacdal khamriga ka iibinayay ka shadayay ka cabayay ka loo shubayay intaba uu nacdalay. marka xeerka waxa jira la dagaalanka mukhaadaraadka xeer number 22 kaas baan ku xukunay qodobkiisa afraad oo 3 sanadood iyo 3 milyan oo ganaax baabuurkana 500 baa la ganaaxay. xeerkaas wuxuu leeyahay marka koobaad intaas la ganaaxaya marka labaad marka saddexaadna waa la wareegaya. marka hawshaas anagu qabanay xafiiska xeerlaantana hashadayda soo diyaariyay. halkan waxaan sida saaxiibadaba hore u sheegeen wadarkiisana khamri far badan baa lagu qabtay. khamrigaas oo ah 150 litir oo ku jiray 35 shirkaan oo midkiiba qaado 30 litir. marka waxaan ku soo xeeraan ahaan waxaan ku soo eedeynay xeerkii la dagaalanka mukhaadaraadka xeer number 2022 soo baxay qodobkiisa afraad iyo waxaan ku xukunay oo u cuskanay aayadda quraanka kariimka ah ee suuratul maa'ida aayadeeda 9aad. marka waxa weeyaan dawanognahay oo khamrigu waxa weeyaan waa umul khabaa'is isaga aabaha iyo hooyada u ah dambiyada oo dhan. talabadan ay ciidamada booliska iyo maxkamadda gobolka Hargeysa ay ku gubeen khamrigan tirada badan leh ayaa noqonaya mid lagu hortago iyo fawaaxishka ku soo badanaya maalmihii u dambeeyayba Soomaaliland. Mukhtar Ismaaciil Cali, Somsa TV, Hargeysa.